daafuri doonta oo inoo si aan baqaadi doonta barnaamijkan iyo waxa looga gol leeyahay iyo sida uu ku soo dhismay iyo heerarka iyo marxaladaha kala duwan uu soo maray ayaan kaafiya oo kamid ah dhalinyarada ururka midowga dhalinyarada Soomaaliyeed oo barnaamijkan door muhiim ah ka qaadatay waxaan jecelahay in ay la soo dhaweysaan ayaan kaafiya oo kamid ah ururka midowga dhalinyarada Soomaaliyeed بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد marka hore waxaan salaamayaa dhammaanba dhalinyarada quruxda badan halkan iskugu timi wiilasha iyo hablaha iyo waxaan salaamayaa dhammaanba warbaahinteena halkan inoogu sugan caawa barnaamijkeena Boosaaso Got Talent waxaan iyagana si gaar ah u salaamayaa garsoorayaasheena qiimaha badan oo in muddo dheeraba barnaamijka nala soo daadihinayay ugu horeeyo abwaan Maxamuud Maxamed Cumar iyo abwaan Cabdi Cali Boos iyo abwaan Muuse Cali Rabaax iyo abwaan Shirmaake Siciid waxaan aad ugu cod daaranayaa inuu naga maqan yahay isna abwaankeena qaaliga ah abwaan Raage oo barnaamijkan qaybihii hore bay nala soo daadinayo caawa ku timi hawlyar inta ka bacdi waxaan rabaa inaan inii furfuro barnaamijka oo yani inaga siiyo xog barnaamijkan marka hore waxaan ku bilaabay hibada iyo hal abuurka qaybtiisii koobaad waxaan ka bilaabay jaamacadda City Coast sanadku markuu ahaa 2019 waliba waxa uu ku qabnaa barnaamijkaas ardayda jaamacadda kaliya oo iyaga uun baanu qabtay 2019 bishii labaad 2020 waxaa xigtay qaybtiisii labaad iyo qaybtiisii saddexaad oo isna aan qabtay sanadku markuu ahaa 2020 bishii labaad 2020 waan ku qabanay isla hoolka City Coast-ka iyo habeenkii gunaanadka oo loo sheegay dadweynaha ka soo qayb galay dadkii ku soo baxay natiijadii halabuurkooda oo aan ku qabanay hotelka Cayte caawa waxaynu diyaar u nahay inaan barnaamijkan qaybtiisii afraad oo aan u bedelnay sida boorka ka wada aragteen Boosaaso Got Talent waxaan aragnay dhalinyaro badan oo hibo iyo halabuur leh oo aan يعني هبادودي soo bandhigi kareen oo yacni aan haysan xitaa goob ay ku soo bandhigaan marka taas ayay ugu kaliftay inaan sameeyo barnaamij noocan waxaan jeclahay inaan inta iyo kasii badan baan aan dhankayga ayaan ahaan wixii aan bulshada hibada leh hibadooda soo jeedin karin ama goobo aan lahayn inaan u sameeyo goobo ay xitaa ku soo bandhigtaan hibadooda iyagu khaas u leeyihiin taas ayaa hadda ku la yiraahdo intaas ayaan hadda ku soo koobaya barnaamijkan kii hore uu ka duwanaan doona hadda la yiraahdo waxa jiri doonta hadii ay jirtay in garsooradu ay habeen dambe kala u dhigtaan natiijada waxa caawa la sheegayaa qofku isagoo taagan stage-ka in hadii uu gudbay iyo hadii uu gudbin wareegyada kale loo sheegi doono hadii la yiraahdo. Assalaamu calaykum.